asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kuna wanaagsan meel kasta aad joogtaan kusoo dhowaada waraysi gaar ah oo aan la yeelan doono xildhibaan naasir cali shire oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan booqasho ayuu ku joogaa wadanka sweden maanta stuudiyaha ayuu marti noogu yahay xildhibaan soo dhowow aad iyo aad u mahadsantay soo dhawaay waan kaaga mahad celina dabcan inaad na soo booqatay oo waqti aad na soo siisay dad badan naasir cali shire way yaqaanaan laakiin inuu xildhibaan yahay ba ogyiin anu waxaan ogahay kole inaad wariye ahayd laakiin haddana maanta dadka kale aan u sheegno naasir waa kufa bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lillah rabbil wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin anigu waxaan ku dhashay magaalada burco dugsigaygii hoose waxaan ka galay burco dugsigaygii dhexe waxaan ka galay dugsiga boardinka ilaa dayaxa ee ku yaala gobolka sanaag magaalada ceergaabo dugsigaygii sare waxaan kusoo noqday magaalada burco oo dugsi farsamo gacanta burcaan ka baxay jaamacaddana waxaan dhamay jaamacadda loo jeedo polytechnicada oo markaa iyadoo 3 sano ahayd markaan jaamacadda ka baxay waxaan ardaygii kalaaskii markaa sanadka ugu sarreeyey waxaan bartay automotive engineering markaa dabeedna masar baa laii diray masar waxaan kusoo qaatay master degree ugu horreeyey ee mechanical engineering markaa ahaa dabeedna markii aan soo noqday 68kii waxaan kusoo beegmay dagaaladii dabeedna waxaan runtii taas markaa keentay inaan dee waddanka ka baxo waxaan waddanka markaa u dhoofay Saudi Arabia ayaan 9 sano joogay oo markaa hadda wadankana xidh fiican baan lahaa ilaa iyo 68kii ilaa intaa kasoo dhoofayay Saudi Arabia oo ahayd 1990 markii aan kasoo dhoofay wadankaas oo bixideeda ay hagaagtay runtii reerkii xaaska iga soo horeeyey dabeetana saasaan kusoo galay markaa Sweden halkan intaan joogay 8 sano ayaan ku qaatay wadanka Sweden waxaan haddana qaatay master degree kale oo la yidhahdo logistics and transportation management jaamacadda shalmish ee magaalada Göteborg iminkaan joogno waan ka qaatay runtii dabeedna markii waxaan noqday activist baan noqday dadka qadiyadda Soomaaliya oo laga wadanka loo yaqaan Sweden taas waxay markaa ay kaliftay inaan noqday dadkii ugu horreeyay ee xisbiga ucid la heshiiyey in la yartaa ee soo raacay Faysal Ali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciro iyo gruubkii markaa wada socday waxaan noqday asaasayaashii xisbiga ucid baan noqday waxaan ahaa xisbigii ucid markaan bilownay laga ansixiyey Soomaaliya waqtigaa waan joogay dabeedna waxaan noqday qofka u horreeyay la magacaabay waxaa laga magacaabay gudoomiyaha ucid qaaradda Yurub halkanaan ka bilaabay unigii u horreeyey ee qaaradda Yurub xisbiga ucid markii dambe dabeedna waxaan ku guuleystay 2005 baan ku noqday Somaliland waxaan ku guuleystay inaan ka mid noqdo baarlamaankii u horreeyay ee Soomaaliya laga dooranayay waxaana ka soo xisbiga ucid waxaana laga soo doortay gobolka Togdheer hase yeeshee markii xisbiga ucid muran badan ka dhacay waad ogeyd gudoomiyaha Faysal Ali Waraabe oo ku adkaystay inuu mar saddexaad sharaxayo waa ka xisbiga waa ka kala jabay markaana waxaa asaasayaashii xisbiga wadani ayaan noqday oo dee waxaan ahaa gruubkii cir raacay baan ahaa faraha badnaa oo odhan karo dhammaan inteedii badneedba halkaasay wada martay waqtigaa haddana muddo imika laga joogo aan ka badnayn sanadii waxooga adoo sanadii badh oo aad doorashada u dambeysay markay dhacaysay ayaan runtii haddana waxaan kusoo biiray xisbiga kulmiye oo imika taga dalka haya marka waxaan odhan karaa runtii dariiqiga dheer aan soo qaaday ahayd ilaa yaraanteeda ilaa iminka waxaan isku tirin karaa dadka active ku ah xagga fircoonida hawlo badanna soo qabtay markaan masar deganaa waxaan noqday gudoomiyaha jaaliyadda baan ahaa ee Soomaaliyeed waxaan noqday wariyaanka ahaa laanta afka idaacadda Qaahira 4 sano wariyaanka ahaa ee Qaahira laanta afka Soomaaliya idaacadda Qaahira 4 sano wariyaanka ahaa dee iminkana waxaan ahay waxaan wax ka dhigaa jaamacadda Golis ee magaalada Hargeysa ku taan ka bilaabay markii la doortay 2005 2006 aqoontayda baan la tegay dabeedna waxaan ka noqday inaan lecturer ka noqdo markii dean baan ka noqday inta Hargeysa joogay kulliyadda engineerinka dabeedna waan kasii dalaacay dabeedna waxaan noqday iminka waxaan ahay gudoomiyaha jaamacadda Golis qeybteeda Berbera waxaana ahay xildhibaan ku jira golaha wakiilada aad iyo aad waa taariikh dheer aad baad mahadsan tahay Sweden waxaad ku joogtaa booqasho inkastoo dee aad deganayd oo 8 sano horena aad tiri waddankan baa ku qaatay maanta xildhibaan baad Sweden waa joogtaa socdaalkaagan Sweden muxuu ku saabsan yahay runtii dee socdaalkaygu waxaa mid private ahaa oo sanad walba hal mar baan imaadaa waddankan haddana dee kama badna inaan qorsheynayo insha Allah tacaala inaan Stockholm tago oo wixii aan baarlamaanka dalkan Sweden xildhibaanada gaar ahaan kuwa taageera qaadada Somaliland inaan la kulmo waxaan arrintaa ka hadalnaa safiirka Somaliland fadhiya magaalada Stockholm
arrintaasna imika waa lee wada iyana la kulmay jaaliyadda Somaliland ee Stockholm insha taala. way dad badan waxay kuga xasuustaan Naasir inaad musuqmaasuq aad in badan aad uga hadli jirtay qof kastaana markaad weydiisan wax musuqmaasuq sibuu isagu maartay u turjumaa adiga Naasir maadaama in badan ku soo jirtay musuqmaasuq maxaa taqaanaa runtii kelmadda musuqmaasuq afka laga soo yaqaano corruption waxay ka kooban tahay afar kelmadood baan ku soo koobi karaa oo afarta kelmadood waa afar kelmadood oo nacamti markaa fal ama ficil ah ama verb ah waxaa la yidhaahdaa aan qaato iyo ii samee marka waxa weeye qof baa loonaysaa qofku wuxuu rabaa inuu wax qaato waxado deedna wuxuu rabaa inuu qaato deedna wuxuu samaynaya isagoo markaa dariiq u marayay isagoo samaynaya marka labahaas ma kala haraan midna waxaa la yidhaahdaa inuu qof kale wax weydiisto yidhahdo waxbaan ku weydiistay waxaan wax iigu bedel waxaan ku oranayaa muxuu ahaa waxaa ama muxuu ahaa mashruuca isax amartaayda waan ku weydiisanaya deedna waxaan ku oranayaa waaye maxaan qaadanaya waage maxaan ku bedelanaya marka afartaa kelmadood ayay ka kooban tahay waxa weeye waa qaadasho iyo samayn iyo muxuu ahaa weydiin iyo lagu bedesho mar kastana waxaa la qaadanaya waxaa lagu bedelanayaa waa shay waa hanti ama waa lacag ama waa shay qiimo leh oo markaas qofkaas waxaa sameeyey oo dee ujeedadu tahay inuu gaadho waana dee waxaanu ku qaadanay mar walba laba arrimo isku dhacayaan sifo baalmarsan sharciga lagu talagalay waa intaa marka dabcan de musuqmaasuq wax fiican ma diintana way sheegtay marka sidee lagu tirtiri karaa haddii si aan la tirtiri karin almiina see la yaran karaa runtii intaana ka jawaabin see loo tirtiri karaa oo wax wanaagsan inay dhahdo maxaa sababi karaa waa maxay waxyaabaha musuqmaasuqa keena badiya runtii marka kuwa ka jawaaba ayay jawaabta noqonaysa waxa lagu tirtiri karaa iyadoo kuwa wax asbaabtii meesha laga saaro marka asbaabta haddaan sheego waxaan odhan karaa ilaa 7 wax baa ugu muhiimsan waxyaabaha sababi kara horta waa soo sheegtay kow waa diin la'aan qofka hadduu akhlaaqdiisa ama etigiskiisa oo aanu wanaagsanayn oo aanu garan karaynba waxaan aakhiro waa lagu weydiinayaa waa diin la'aan waa kow marka qofkaas uu ku dhiranaya inuu soo sameeyo waxa kaloo qofku uu sameynaya oo aad u cajiiba haddii qofka haddii dakhligiisu aad u liito sababna ku jirto ama meesha ka shaqeeya mushaarku ka qaata yar tahay taana way sababaysaa waxa la wadada horumaray GDP waxa la dakhliga soo qofka fardiga haddii dakhliga qofka fardiga soo gala aad sareyso qof marka waxa maxadayo way dakhli fil baysa saddex waxa ka jira aqoon daro haddii qofku uu yahay aqoonba aanu lahayn waxaan uu qaadanaya maxay tahay aqoonba malaxad tiidida ka kaalay aqoonta kaleba ka soo qaaday cilmiyeed waxa dadka waxa kala wadama horumaray waxay yiraahdaan hadii dadka aqoontooda la wada dhiso loo qaado itigiskiisa dhaqankiisa qofka ku dhirimay inuu waxdo waxa kale oo aad loo sheegay wax loo yaqaan dabiic muxuu dhaqanka inaga dhaqan baa jira qofka oranayo waxaan ku geynayaa meel caana leh kelmad waxa loo sameystay kelmad muxuu kale oo marka lagu qurxinayo waxaan meel caana ama meel dhacdhacda leh ba joogtaa marka waa waxad baa loo jeedaa marka waa culture-kii iyo dhaqankiina waxa weeye waa in markaa muxuu qeybay ku yeelanaysa waxaa kaloo noqonaya shuruucdii accountability-ga xisaabtankii iyo transparency-ga oo ah daahfurnaantii iyo isla xisaabtankii iyo shuruucdii qofka waxa uu galo lagu xukumayey muxuu ahaa haddaanay jirin iyadoo uu samaynaya qofkii uu ku dhiiranaya haddii dee hebel saaxiibkaa xado waxba lala hadli waayo adna ku diisa adna waxaasa taga waxaa kaloo noqonaysaa oo iyadoo xoog runtii raad weyn ku leh waxaa loo yaqaano miidiyuhu waxaa loo baahan yahay adduunka iyagaa dabagala shakhsiyaadka lagu tuhmayo waxa loo yaqaano inuu xatooyadooda sameeyey iyaga ayaa soo sawira iyaga ayaa xataa mikrofoono miiska u saara wax kasiga sameeya iyagaa fashaliya qofka inaga miidiyaheenii reeru noqonayaa hadu doono ku doono oo qofka marka qof ku dhiiranamayaba qofkii midiyaha ka shaqeynay inuu qof ku eedeeyo musuqmaasuq haddii ku eedeeyo boqolba ka daba hadlayo maartay oo dhaqankeeni taasna waxay tahay oo waxyaaba meesha aan isleeyahay waa marka qodobadaas 7 qodob ayaa sababta musuqmaasuq keenaysa haddaan su-aasha imaado
marka toddobadaa qodob meesha laga saaro dee qofka akhlaaqaadka qofka la baro oo etigiskii diinta qofka fidhado cilmigiya qofka dadkana waxaa loo yaqaana aqoon darida ama literacy kor loo soo qaado taasi waxay keenaysa marka iyadana marka inay sababihan soo sheegay un haddii xalxabad u taamo ma kuwa laga saaray meesha iyo hay-adihii waxaa ku shaqaynayey ee maamulayay muxuu ahaa iyagu keenayey waxan waa institutions hay-ado la sameeyo oo la empowergayo la xoojiyo oo dawladda waxaan ka shaqeeya waxaa ka mid ah hay-adda loo yaqaano hantidhowraha guud waa inuu awood leeyahay aanu cidna kaabra cidna ka baqayn awood uu leeyahay aanu ka baqayn waa lagu eraya weli la madaxa banaanaysiiya completely oo marka la maanta lagu doortay ilaa maanta kaa eg tahay waa haystaa muxuu lagu empowergayo lagu xoojiye waa ka mid ah waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano maxkamadii sharciga ahaa iyaguna markii wixii loo keeno xeeralid kusoo ogto iyaguna shaqadoodii qabsan kareen ee aanay markaa ay yihiin de institution dee shaqaynaya oo iyagu weyn haadaan toban dambe isaan isleeyahay waa waxa weeye in la sameeyo waxa loo yaqaano sayibka golaha wakiilada wuxuu leeyahay guddida ilaalinta guddida ilaalinta iyo dabagalka qalka guddidaasi may shaqayn jirinba ka hor annaga markii anaga ninkii loo jiray Obama maxamed aan bilownay way jirtay magac ahaan laakiin waxaan jirinba waxa guddida buulka loo yaqaanay marka qofka in guddida laga saaro buulka laga guddida laga jiray dawladda way shaqeyn marka aniga Obama iyo ragii markaa bilaabay ayaa ahayn ragii fahamsanaa guddida inay tahay guddida adduunka ugu muxuu komitida ugu caansan baarlamaanka adduunka uguna awood badan saasaan soo saarnay marka saas guddiga markaa awood badan markaa guddiga waa yarkaayay bilihii u dambeeyay waxa fara badan bay soo saartay iyo dee waxa kaloo adduunka kale yaqaano hay'ad la yiraahdo anti corruption committee bayna adduunka way samaystaan marka waxaan hay-adihii waxaa markaa kaga shaqaysiinayay marka waxaa meesha laga saara iyana meesha mana joogaan saad sheegtay dee in badan baad dabcan ka soo shaqaysay musuq maasuqa maaragtay la dagaalankiisa ama in badan baad ka hadashay si fiicanna iminka waad u dhigtay inta idigu ka shaqaynayseen adiga iyo kooxdaadii kale waxyaabihii idinku yaabka badnaa istiraadeen allelaatan waa fajac maxay ahayd wallahi runtii khadaro arrintaas horta waa arrin cajiiba runtii intii aan ku jiray guddida ilaalinta iyo dabagalka qaranka anigu waxaan gudoomiyihii labaad ee guddida maamula gudoomiye igu hor maxamed cali buu ahaa anigu gudoomiyihii labaad baan ahaa iminka gudoomiyihii saddexaad ee guddida samar ayaan ka jooga waxaa noogu yaabka badnaa aan ka xasuusto cajiib wax ka mid ah hay-ad ka mid ah hay-adaha dowladda oo iminka shaqaysa ayaa waxaan la balansanay guddoomiyaheedii meesha maamulayaan la balansanay markii uu noo soo degay ayuu gaari ka soo degay gaarigan saa u milicsaday mise gaarigu waxa weeye waa gaari muxuuha waxa ku dhegan taargadii privateka wuu nala soo fadhiistay hadalkan furnay dee su-aal baa la weydiye baabuurka aad ka soo degtay muxuuha uu islaaga wuxuu waa kii dowladda waxaa ku nihi haddaba baabuurka waxaa ku xidhan taargadii privateka waayo markaasuu naxay uu arkayda inay meeshii si ka tahay wuxuu ka haduu garan waayey waxba iska hayidi saad ugu xidhi kartaa gaariga dowladdu leedahay saad ugu kartaa taargada ugu xidhi kartaa oo weli adigu wadato markaasuu yidhi muxuu ahaa hadaa imkaan ka furaya markaasuu ku yidhi ma ballan meen ku sheegnaa mise waxaad ballan qaadaysaa in ka furaysid waan ballan qaadaya mar dambe ku xidhi maayo cajiib soo marteen waxyaaba kale uga caajisanaysa waxaa ka mid ahayd oo aada ula yaabnay muxuu ahaa mar baan samaynay wax loo yaqaano baaritaan gobolladoo dhan oo gobol walba waanu tagnay ilaa awdal ilaa gobolka loo yaqaano laascaanood ilaa ceergaabo laascaanood waxay ahayd waxaan guddidii ugu horreysay ee guddi golaha wakiilada ah ee 2015 tegey magaalada saxaad ka tegey waxaanu soo ururinay miisaaniyadda qaranka ee la isticmaalo sidee bay u gaadhaa gobollada wasaarad kaas inta ka gaadha waxaa noo soo baxday wasaaraduhuba inaan maamul dadisho samaynin oo ninka isduwaha loo magacaabay masalan wasaaradda ka soo qaad wasaaradda caafimaadka ee jooga masalan magaalada masalan oodweyne jooga ama jooga masalan magaalada burco ama jooga magaalada masalan magaalada laascaanood jooga xafiis ma leh gaadhi ma leh kursi ma leh hadda waxa la wasaaradda kolka wuxuu shaqayn karaya marka runtii taasi waxayd waxyaabihii guulihii aan gaarnay warbixin baan ka qornay bug baan ka qornay
wasaaradda maaliyadda u gudbinay way qaateen fikirkii waana sheegnay wasaaradihii markaa maamulda sameeyey waxaa noogu yaabka badnaa nin isuduwe ah oo wasaarad ka tirsan oon xafiis lahayn gaari lahayn gurnaylkay loo soo diro oo shaal lahayn oo haddana leeyahay wasduwihii wasaaraddas oo magaalada madaxda gobolka maxay ku dhacday markaas waxay ku dhacday wasaaradahan waaweyn ee hargeysa jooga may samayn maamul xataa kharashaadka ku baxa imka waxaan kaloo soo ogaanay bari dhexe boqolkiiba almost around 60 ayaa lacagta miisaaniyadda waxay ku baxdaa gobolka Muqdisho kaliya sababta waxa weeye dee golayaashii baa jooga mushaarooyinkii kharashaadkii waxa hargeysa ka dhacayaan waxa ka sarreeya ka dhacayaan marka gobolkii waxa jooga kaliya waxa dowladda shaqeysa way marka maamulda dejintii meesha ka maqan marka maamulda dejintii wasaaradaha meesha ka maqan iyo in wasaarad kastaaba miisaaniyadda qaranka ay leedahay in kamid ay u qoondeyso gobolada si ugu maamul lahayd oo kor loogu saqaaday in qoondeyso waxa cajiib ah oo mar aan eegnay waxa loo yaqaano saa loo dakhliga gobolada waayo waxa weeye miisaaniyadda waxay kooban tahay dakhliga kharash dakhligaas waxa la isku dheeli tiraa dakhliga kharashka miisaaniyadda qaranka waayo guddida aan ka tirsanaa ayaa shaqadeeda waxaa ka mid ah inay sanad walba dib u eegto miisaaniyadda golahu ansixiyey guddida aan ka tirsan jiray shaqadeeda waxay in ay mar walba dib u eegto oo waxa loo waxa loo yaqaano in la soo xiro miisaaniyaddii marka miisaaniyadda la soo xiray ba dib u eegtaa dabeetana waxaa shardiya eegnaa sidii loo ansixiyey golahu ma loo kharash karay waxaa noo soo baxda ka soo baxa oo gudda kale guddi dhaqaale waxay eegaan marka dakhliga oo muxuu ahaa dee oo daroska ah ay dowladda soo qorto way ka jeegarayaan anna waxaan jeegaraynaa dakhligii soo baxay sidii loogu tagay ma loo isticmaalay waa labada qaybood ba labada guddi baa ku jira golaha wakiilada marka waxaa soo baxday markaad eegto dakhliga ka soo baxo waddanka Somaliland laba gobol ka isbixiya inta ka soo bixiso waa labadii oo gobolka saaxil gobol gabile dakhliga ka soo baxa iyo waxay kharash karayaan waxa badan wax dakhliga ka soo baxa asal isma bixiso awda isma bixiso togdheer isma bixiso de kuwa kale asal isma bixiso kuwa kale dee maxaa gobolada magacaabinaya hadalkooda waa garta marka labada gobol waxa ka soo baxa ee surpluska aybaa kharash u noqda waxa way soo saaraan laakiin bixiyaan waxaan ku darayaa oo runtii waxyaabaha aan dee aad ola yaabay waxaa ka mid a oo cajiiba marka intaan dee guddaa ku jiray waxaa noo soo baxday mar in wasaaradaha qaar hadda ma garanayo la joojiyey laakiin wasaaradaha qaar baa wasiirda wuxuu samaystay account buu ka samaystay banka Somaliland wuxuu kula heshiiyey wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha gudaha wuxuu kula heshiiyey in account-ka loogu shubo lacagta loogu shubo account-ka wasaaradda ku leedahay banka lacag loogu shubo deedna 3 bilood baa loogu shubaa lacag 3 bilood deedna lacagta isaga markaa tabaag saga qaybiya marka lacagtaasi xaqii ku baxday hanti muxuu ahaa xisaabihii guud ahaa ee jeegarinayay meesha ka baxayba maba eegmaysa ninkii wasiirkan baa lacagun la baxayo laakiin lacagtani meesha ku baxday soo lagama rabo in la ogaado hadhow 3 bilood ka loo soo diraya waa gartay 3 bilood kama lagu soo diray bank account ku jirto wasaaradda oo ka wasmase wasiirka marka wasiirka ma qofka kaliya sheegay qoraya adiga sii diinaya marka dee lama oga wuxuu qarshay inuu ku kharash kay wixii loogu tala galay inuu ku kharash kariya baar iyo ogaaba cilmiga laakiin imka hadii system ka waxa weeye voucher kasta oo ka soo baxay wasaaradda maaliyadda oo wasaaradda loo sii deynayo waa in la jeegareeyo in kharashkaas halkii loogu tala galay inuu marayo weliba waxaa shaqadaas kale ninka loo yaqaano xisaabiyaha guud general accounts way musuqmaasuqu wuu ballaaray Somaliland musuqmaasuqa dabcan aad buu u ballaaray adigu saad sheegayso maarta ka markhaati kacayso laakiin dadku imika isha waxay ku hayaan shirkadda DP World oo aad moodo in la leeyahay sidii saxda ahayd wax aan la ogeynba maartay ayaa loo saxeexay waxay qaadatay dekadii berbera baladu ka waran walaalkaana dadka saxeexay ku jiro markii Nasir kama hadal baa la leeyahay horta arinta ku saabsan DP World horta dad fara badan oo reer Somaliland waxaan aad uga xumaa in halkan ka shaqeynado aqoon iyo daraasad ay ka sameeyeen DP World ka berbera jooga waa sidee horta ma jirto waxa wanaagsan in dad badani waxa xogta ka dhiman in raadiyaan horta DP World dadka lama siinin
waxaa la siiyo keliya dejinta iyo rarista handling wax loo yaqaano baa la siiyey dekeda shaqeeda waxay ka kooban tahay laba qaybood waxa loo yaqaano marine services waa qaybta maamulka badda waa markabkii lasoo xidhaayey calankii Soomaaliya laga taagayey la nadiifinayey biyihii la siinayey wixii oo dhan weliga waa gadho taagga keensanay taagga cusbaa taaggaasi qayb buu ka qaatay iminka hawshaas si loo fududeen innagaas kale dib u wad male innagaas soo xidhina marka halkaa lacag baa ka soo baxda lacagtaas waa marine services innagaas kale laba marka nimanka waxaa laysa marka kaliya cashuurtii wixii badeecad ka soo degtay halkaa degad ka degta markay dib u soo dejiso customerska imanayaan cashuurtiina wasaaraddii maaliyadda joogto lacagtii cashuurtii qaasa ekada wixii maaliyadda laga qeyni lahaa cabdidhiibigood baa lacagtii qaalgalisay meehin cashuur meehin waxay wax ku dareen arrinta ku saabsan soo dejinta alaabta markay ka soo dejinaya markabka ay dhulka soo dhigeen waa intaas bay lacag ku dareen laakiin taasna in badan baa muran ka taagnaayo oo anugu ribaran waan ka warhaya waxaa muran ka taagnaa maraakiibta iyo dhiibigooda muran ka dhexeeyey oo ninka qofka muwaadinka ahee alaab kale soo dega bara markuna dejibu ka qaadayay dhibooda deji bay ka qaadisay marka taasaa meesha la doonayay in ahayd in dhinacun qolun lacagta qaadoon marka waxaa ka jiraan soo koobo dekeda haddii dhiibooda siiyey barxadda ay ku shaqaysanayso waa laga kariyey sanadka waxa laga qaada $5 milyan baa laga qaadaya laba marka ay dejintu ay dhammaato hawshaa la galo sanad walba inta aan kharashaadka lacagta laga saarin 10% maa leenahay markii marka horsaba laakiin dadku waxay ku wareersan yihiin tusaale ahaan oo kale shirkada DP World haddaynu kasii hadalno in waddo cusub dadkii loo dhisayo dalkii iyo in kii hore loo kabayo macnaha arrintaas weli ma cadda dad badan imka way caddahay halkee lacag xagga kale horta heshiiskii halka ka saxay marka ay sanadku dhammaadana anigu waxaan ku wareejinay March 2017 lagu wareejiyey March 2018kii anigu waxaan goobjoog ahaa muxuu ahaa general auditor muxuu ahaa laba dhinac isla afkarteen baabaadayay kharashka iyo dakhliga siis labadii saamiye aanu ka dhiiboodii sanadkeed mid macaash ka soo baxay inuu kala qaadana marka macaashkeeda waa 30% ayaan leenahay wax meesha ka soo baxa marka saddex jamac qaadanay kiradii barxadda inta aan dakhliga laga jarin iyo markii la macaashay waxa kaloo markaa inta noogu dartay markaa noogu daray dekadii maxaa 400 meter waa la bilaabay taas waa 100% su'aanaha baba kaymi waa la bilaabay marka hore clearingkii baa la sameeyey qalabkii uu yimi dadku way shaqeynaysaa dadka ka shaqeynaya tan ku saabsan muxuu ahaa waay mashruuca waxaa ku jira dhiibood waxaa ku jira wax loo yaqaano bira corridor oo in badan Soomaaliya ku taamisay kaatan ka sheego waa run oo iminka bira corridor waa run waxaa la isla gartay in wadadii hore maraysay Faranbarbara ilaa Wajaale intaa la balaariyo dhammaan wadooyinka oo bridge laga dhigo bypassna loo sameeyo magaalada Hargeysa oo wadada laga duwo si saxmad aan marin tawa saqaatay way hadii kale dhammaan magaalooyinka ku yaala ilaa Wajaale ilaa bara wanaga dhimanayaan waqtigan ugu yar way ka faa'iideysteen gobolka togdheer baa laga soo doortay sidaad sheegtay maxaad ku celisay gobolka laga soo doortay su'aasha aad baa lii weydiiyey runtii su'aashaas waa su'aal muhiim ah haddana intii gobolka waxaan oran karaa anigu xaqiiqan iska sheegaya ma 5 sano horeeyey mise intii ka dambeysay anigu 5 sano horeeyey waxaan muujiyey firfircooni oo gobolka laga soo doortay aad baan caan uga noqday iskuulana waan geeyey waxyaabo fara badan halkaa gacamtii adeegyada bulshada ah waan ka qabtay deegaankii laga soo doortay taa wii qaraya intii ka dambeysay 2010 markii laga soo bilaabay waxaan u go'ay inaan dadka wax baro markii horena macallin baan ahaa iminkan ilaa hadda lecture macallin baan classkan gala now qalin baan qaataa classkan gala anigoo gudoomiyaha jaamacadda ah hadda class ku qoranay bandhiga marka waxaan qayb weyn ka qaatay in muxuu gobolka saaxil oo kaga dambeeyay tacan sida gobolada inteeda kale bal maanta wax baray dufcaadii 7 baan ka saaray 400 oo inaba ka kala jabiyay dhammaan ragga maanta magaalada bari ama gobolka saaxil ka shaqeeya ama qaarkood ka shaqeeyaan ama dhiibood ka shaqeeya ama haamaha ka shaqeeya dhammaan waa ardayda ka soo baxday jaamacadda Gulisa Bare waxaan oran karaa anigu waxaan ahay nin ku suntan waxbarashada inta nolosha dadka wax bartay waxaan nolosha waxaan siiyey inta wax baro waayo halka xildhibaanka kale Hargeysa iska jooga uu iska fadhiyo uu fadhiyadu waa dadka masarta anigu waxaan ahay nin ku suntan habeenimo maan u taagan ilaa 2007 ilaa maanta inaan dad jiil cusub saaro waxaan rumaysanahay dadkeena in wax la baro haddaan wax barano haran soconayna gabagabadii joognaa dabcan saan shay waqtigun aad buu noogu yar waxaa jira xeer hor yaal golaha wakiilada aad ka tirsantahay
waa xeer sheegay in xasaanada laga qaado golaha deegaanka marka laga reebo maayarka ku-xigeenkooda waqtigan maxaa keenay in xeerkan u yimaado hortii xeerku waqtigan uu ku soo beegmoon laakiin xeerkan waqti imka malaa kasoo wareega malaa sanad dhodhowey ayaa la keenay mooshin golaha wakiilada leeyahay hal qodob ka mid a xeernimada 23 hala bedelo oo ahayd xilka lagaga qaadi karo maayarka oo tuuser ba wax lahaa ha laga dhiga lahaa muxuu ahaa aqlabiyad fudud laga dhigo markii taas la sameeyey ayaa xeerkii waxa loo baa go-aan golay noqotay la yidhi waa qodob kaliya inaan bedelina xeerka oo dhan gebigiisaba aan dib u eegno maadaama godooyin badan uu leeyahay oo xeerka waxa la sameeyey sanadkii 2000 baa la sameeyey dabeedna taasa markaa keentay ilaa inka golahu yaale dabeedna waxaaba soo baxay maanta waxa soo baxday in la waayeyba wax allaale haddii golayaasha deegaanka waqti ka dhaco yaa wuxuu kordhin karaa ama halkay tegay waa la waayeyba xeerkana kuma qornayn waa waxa la sameeyey goortu waa tii diiday marka anaga golaha maanta ilaa December nolo ka dhigayay way diiday golaha waxa anaga dee qodob noo ansixinaya inaanu golaha deegaanka ugu darno u kordhin ma hayno marka iminka waxaan hubaa in dee la doonayo mar labaad in bahalkii si fiican loo saxo waana waxa loo yaqaan waa mashruuc sharci oo lagu samaynayo wax kabedkaas lagu samaynayo laakiin de weli muu dhaqan gelin marka afkaarta meesha ku jirta horta waxa iminka saan kaga warhayo 50 qodob oo xeer ku jira baa lagu sameeyay wax kabedkaas lagu sameeyay 50 qodob ma mid kaliya ma 5 qodob cusub oo lagu soo daray oo ku jira marka dhammaan waxa la rabaa waxaas waa laga doodaya golaha ka doodaya maaha waxa laga hadlaya go'aan maaha waa gudidii arrimaha gudaha oo black oo gudbi ka yahay ayaa soo bandhigay oo goluhu soo gudbiyay waa laga doodayaa guursay gudbaysaa xukuumadda gudbaysaa marka waxay qaadanaysaa wadadii dheereed awalba la mari jiray wax ka beddelka lagu sameeyey waa wax dadkaasna ay wada mari karaan waa maasanta gabagabadii baan joognaa hadda waxaan waqtiga aad baan ugu yiri waa maxay fariinta u dirayso ee dadka ku daawanaya iminka والله إن شاء الله تعالى تاكو صاحب ما محل فرنت هدرسها هذا رنتي waxaan doonaa halkan umada reer Soomaaliland u hambaliyeeyo insha Allah taala gobonimada ay halkeeda harsanayaan ilaa koobees ka shaqay sida tagaasan ay nabad ku noolaayeen waxaan kaloo ugu hambaliyeynaa maartay dadka faraha badan ee reer Soomaaliland meel walba qadin Soomaaliland ka difaaca runtii waan hambalyeynaya wax naga wada dhaxay aan wada leenahay haddana si kooban idhaahdo waxaan kali oranayaa waa TV-da Somaliland maanta ku taxtay qabyaaladii bal u fiirso Djibouti halka la yiraahdo Soomaaliya Ethiopia meel qabyaalad TV laga halabto waxaan soo jeedinayaa qabyaalada TV-ga isoo anagoo reebala ila mamnuuc laakiin idinku golay wakiilada tiin xildhibaan soo idinku maaha ina xeerar keentaan waxa kameynay waxaan inta eedayn lahaydeen maaragtay TV-yada iyo dadka kale iyaguna qabyaalada isticmaalay soo maaha idinku keentaan horta waxa weeye xeerkeen la yiraahdo xeerka muxuu ahaa media hadda imka dowladda gacanta ku haysa waxaana soo jeeday in lagu daro waa soo jeedinaya waa isaga laftiisa waxa lagu sameeyay wax ka beddelka habs waa marka waxaas ku jirin marka iminka yani waxa weeye taas waa dhaqan aad u xun oo xataa dadkeeni kala qaybinaysa marka horta waa in TV-da xataa si ku meel gaara waa in wasiirka warfaafinta soo saaro go'aan oo qof TV-ga isticmaala liisuma laga qaadanaya waan loo sheegay waxaan sameeyay waxaan la hirgeliyay taan ka gudbiyay waa talayda waxa kale aan runtii aan u soo jeedinaya dadku inay yeeshaan midnimo dadka reer Soomaaliya looga baahan yahay inay dad midaysan oo qadiyad dad meel wax ku eegay noqon cadow kale wada leeyihiin maaha in qofka reer Soomaaliya jooga laba cadow male cadowgu wanaagooda dhaxaya cadow kale wada leenahay marka si aan qadiyadeena uga midhayno waxa loo baahan yahay in wada midaysnaano oo meel wada jeedo aad iyo aad baad mahadsan tahay daawadayaal kaas wuxuu ahaa xildhibaan naasir cali shire oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland oo dabcan lagu soo boqday studio aad iyo aad waxaan uga mahadcelinaa waqtigiisa na siiyey tan iyo kulanti dambe waxaan ka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh